iyadoo dhawaanahanba magaalada Gabiley uu ka jiray khilaaf lagaga soo horjeedo dilkii loo geystay saraakiisha dhawaan lagu dilay deegaanka Qorilugud ayaa waxa kulan ay yeesheen xalay oo ay ku yeesheen magaalada Gabiley wasiirada arrimaha gudaha maaliyadda madaxtooyada ganacsiga iyo waliba warshadaha ay ku heliyaan taliyaha ciidanka booliska Somaliland iyo xildhibaanada golaha wakiilada ee ka soo jeeda gobolka Gabiley iyo waliba odayaasha gobolka Gabiley ayaa warbaahinta u sheegeen odayaashu inay dhimeeyeen gabi ahaanba khilaafkaasi waxayna yiraahdeen waxaan doonaynaa in ummadda u iclaamino guud ahaan reer Somaliland gaar ahaan reer Gabiley in wixii khilaafaad ahaa nooca laga faa'iideysto la doonayo cadawgu ka faa'iideysto inuu dhamaaday reer Gabiley iyo xukuumadooduna ay heshiiyeen sidaad ku arkaysaan halkan mas'uuliyiinta madax dhaqameedka gobolka Gabiley iyo mas'uuliyiinta siyaasadda gobolka Gabiley xaadir bay ku wada yihiin way dheeyeen waxa kale oo xaadir ku ah madaxda qaranka heer gobol iyo heer qaranba leh waanu si cad baanu arinta uga wada hadalnay si kalgacayl aan uga wada hadalnay si naxariis aan uga wada hadalnay si turaalo aan uga wada hadalnay annagoo dalka iyo qaranka u turayna iyaguna ay annaga noo turayaan waanu iska afgaranay wafdigii maanta yimid ee wasiirada ahaa iyo kii ka soo horeeyay joogay iyo odayaal haddii aanu ahayn iyo madaxdii gobolkaba dhammaan waan isu wada nimid maanta arrinkaasi aad iyo aad u miisaan badan ayaa looga wada hadlay waanu dhammaaday waxaana go'aanku noqday geeriyaha iska daba dhacay mididee waxbay ka dhacday gobolkeennan waa arrinaan sii fogayno waxaan ka hadlaynaa marxuunadii ilaahay naxariistii jannaha siiya Qorilugud lagu dilay ee gacanta ka darani ku dishay iyo ka maanta ku dhintay halkan isaga laftiisa gacan ka daran baa dishay cidna ma u dilin dawladda iyo wasiiradii hore iyo wasiiradii dambaba markaan isku nimid iyo odayaashii waxaan ku heshiino aan ku wada hadalay dawladuna nagu tiri ciddii falka ka dambaysay ee nimanka Qorilugud lagu laayay ee sharqoolka lagu dilay intii sharqoolka ku jirtay dhammaantood waa la soo qabtay waxa maqan ninka kaliya ee xabadda ku riday nimanka ku laayay baa maqan dilkuna ninna xabaddu ridaa ninna arrinku ku dilaa dhammaantoodba waxaanu ku heshiinay ka sharqoolka ku jiray iyo ka dilay intaba marka la soo qabto in sharciga la mariyo sida shariicada islaamku tirina lagu laayo hadduu 10 qof dilaan qof kaliya 10 kaba shariicadu waa u dilaysaa in sidaa loogu dilo hadday 10 gaaraan inta sharqoolka ku jirtay in lagu dilo iyo la dilo oo shariicada la mariyo iyaanu ku heshiinay waxaan arrinka ku dhamaynana waa sidaa naxariis janna Allah siiyo kanna maantana halkan ku dhintayna ninka toogtay saddex nin baa xidhan baa la yidhi ninka toogtay nin baa xabad riday ninka xabad riday waa la mid isaguna waa dawladana kala saaraysa ninka xabad ridayna gaar baa loo saarayaa isagana sharciga la marinaya meesha soo tumiyay maanta u joogta arrinkan gabagabadiisa alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waxa soo dhamaaday arrin waxoogaa socotay wiiga gudihiisa oo ka soo bilaabantay dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday Qorilugud ee ku dhintay labada sarkaal ee ciidanka qaranka ka tirsan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariis janno ka waraabiyo eheladoodii iyo qaraabadii iyo asxaabtii samir iimaan ka siiyo kullu nafs daaqitul mawt qof kasta uu dhimanaya waa Jaafar Awleeri Kalsan TV magaalada Gabiley.